السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janaalkana PMA Production oo anigu ah PMA. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay 3 application oo loogu talagalay Samsung. saddexda application marka anigoo adeegsan doono labadan application Goodlock iyo Finelock. sababta Goodlock wadamada qaar uma furno, marka Finelock oo kale ayaad Play Store-ka la soo degaysaa. haddaba daawasho wacan. tusaale haddii aan furno Goodlock oo kale inama soo qabanayo, sababta wuxuu leeyahay there was a network or server error. marka sidaas darteeda wuxuu ula jeedaa wadankaaga uma furno kale. marka haddii aan Finelock oo kale soo kicino, wuxuu noo soo saaraa applicationadan oo dhan. aniga hadda applicationadan oo dhan waa soo degsaday. markii kow aad soo furto applicationkan sidan camal ayuu noqonayaa, madowgan camal ayuu noqonayaa. marka sidaas darteed waa inaad soo degsataa applicationada, saddexda application ee aan ka hadli doono. applicationka koowaad ee aan muuqaalkan kusoo qaadan doono waxaa waaye log start. waa application log start oo log loogu talagalay oo wax aad ka bedbedeleyso. tusaale oo kale hadda log haddaan geliyo telefonka, haddoo kale meeshaan oo kale hoos waan bedelay, qaab kalean ka dhigay. meeshaan waa bedelay, qaab kale ayaa ka dhigay. marka waa custom, waad bedbedeleysa, saa doonta ayaad ka dhiganaysaa. bal hadda aan soo kicino. marka waa kan applicationka sidan ayuu kugu soo baxayaa. log screen timeka waxaa ka dhigan kartaa 30 second, kadib ha isxiro. 15 second ha isxiro, ama default sidiisaba ku daay. haddoo kale waxaa taabanaynaa edit log screen. markaa taabano sidan ayuu noogu soo qabanaya. positionka ugu horeeya waxaa waaye kuwan ayaad positionka meelaha doonta ayaad geysanaysaa, mafahante. marka meesha doonta ayaad geysanaysaa kuwan. wallpaper wuxuu leeyahay oo asiga applicationka oo wato oo aad u qurux badan. ama waxaad sameynaysaa inta ayaad taabanaysaa wallpaperka aad doonto ayaad kusoo daranaysaa. qaybtan kale clock, waa clock, saacadda geeskan saacadan ayaad bedeleysaa. nooca doonto ayaad ka dhiganaysaa saacadda. haddana dhinacan haddaan usoo baxno items, haddoo kale face widget. haddii aan taabano mujeeda saacaddii ayaa qarsamayso. help text sida fingerprinting oo kale way qarsamay iyadana. statuskana qaybtan kore iyadana way qarsamaysaa. shortcut waxaa lalaa marka kuwa applicationada haday aan idin tusayo meeshan geeskan hoos kaga soo qabanayay ayaa shortcut ahaan. haddoo kale labadan qayb ayuu noqday. qaybtan waa call, qaybtan waa camera. ama waxaan ka dhiganaynaa applicationo badan ayaa kusoo daranaynaa. marka waad taabanaysaa applicationo badan, adiga ilaa 6 application camal ayaad kusoo daranaysaa. markaad 6daas kusoo darato kadib waxaad dhahaysaa apply. aniga hadda 6dan application ayaan adeegsadaa. applicationka labaad wuxuu noqonayaa navstar aan dhehe. applicationkan waa application navbar waxaa lalahaa. meeshan hoose qaybtan hadda aan gacanta ku hayo ayaa navbar lalahaa. haddoo kale ani waxaa ii saaran calaamad yaroo dheer. marka waan bedelaya, waxaan ka dhigayaa sida tan ayaan ka dhigayaa. navigation bar ayaan aadayaa, kadib waxaan ka dhigayaa navigation button. kadib sidan ayuu noqonayaa. marka sidan aniga ayaan ka dhigay. hadda aan soo furno applicationka navstar ayaan taabanayaa. applicationka sidan camal ayuu ku yahay. marka waa inaad custom wax ku dartaa, calashan hadda aniga waxay ugu jiro screenshot iyo inaa video play aan dhihi karo anigoo meeshaan navigationka anigoo joogo. marka waxaan leeyahay
anigoo hadda kan oo kale ii saaran tusaale waxaan taabanayaa new kan ayaan taabanayaa. kadib waxaan imaanayaa qaybtan kale button layout. kadib waxaan taabanayaa add button. markaas waxaan kusoo daranayaa midaan doono hadda screenshot haddaan rabo inaan kamerada soo furo anuu navigationka joogo, ama screen off haddaan dhaho, yani tusaale kale screen off oo kale adigoo isxiraya telefonka anigoo navigationka joogo ama internet. waxyaalahan dhan ayaad mid ka dooranaysaa, laba xabo ayaad kusoo daranaysaa. hadda ani waxaan kusoo daray screen capture iyo waxaan kusoo daranayaa camera. marka mujeeda labadaas xabo ayuu ku siinayaa. dhan ayaan dhahayaa. kadib waxaan sameynayaa save ayaan dhahayaa. save markaan dhaho waa kana qaybta hoose ayuu imaaday. marka sidaas ayaad ugu daraysaa. hadda screenshot oo kala qaadayaa. haddii aan u baahdana kamerada ayaan furayaa. ujeeda applicationka saddexaad horta application aada u badan waaye oo maaragtay telefonka waxaa loogu talagalay telefonada Samsung firshinada u dambeeyay. hadda firshinka Android 10 iyo maaragtay Android 9 iyo Android 8. marka intaas firshin ayaa maaragtay applicationadan qaarkood ay ku shaqeynayaan. marka applicationka saddexaad wuxuu noqonayaa sound assistant. yani sound assistant waxaan ula jeedaa hadda markaan taabto qaybtan waa ujeediin waxaa loo yaqaanaa sound assistant. yani wuxuu ka caawinayaa tusaale kale meelahan ayuu kaaga soo qabanayaa. sidaas darteed marka geeskan inaad ka dhigan karto. hadda setting ayaan aadaya tusaale kale waxaa taabanaya value wuxuu yahay classic. yani mujeeda korkan ayuu igaga soo qabanayay marka hore. marka waxaa ka dhigay zero oo maaragtay geeskan ayuu igaga soo qabanaya. haddii aad tahay qof yani gacan bidix adeegsanayo kale left ayaad isticmaali kartaa oo gacanta geeska kale ayuu kaaga soo qabanaya. kalarka doonta ayaad adeegsan kartaa. waxyaalahan waad adeegsan kartaa sida fluting button oo kale. markaad taabato power buttonka hadda aan furo hadda value buttonka oo kale haddaan taabto waa kana waxaan yarka ayaa iisoo qabanaya. marka waxaa la fluting button waxaan yariiska ayaa iisoo qabanaya. marka muuqaalkan saddexdan application ayuu maaragtay ku saabsanay. applicationo badan ayuu leeyahay appkan fine log. sababtoo ah applicationka waa soo degsanaysaa. horta qaabka aada u soo degsan leedahay idinma sheegin. marka kuw applicationkan play storeka ayaad kala soo degaysaa. fine log ayaa la kuw play storeka ayaad kala soo degaysaa. marka kadib waxaa sameynaysaa applicationka sidan camal ayuu noqonayaa madowga. markaad soo furto kow marka waxaa sameynaysaa saddexda application ama dhammaan haddii aad u baahantaho kale inaad soo degsato. waxaa sameynaysaa applicationka doonta ayaad ka dooranaysaa. waa taabanaysaa kow kadib waxaad taabanaysaa visit fine log home page. markaad taabato kadib websiteka chrome ama meel kale ayuu ku geenayaa. marka inta ayuu ku keenayaa waxaad sameynaysaa hoos ayaad usoo degaysaa. waa kana applicationada dhammaantooda kuwan waa. marka midda aad doonto ayaad soo degsanaysaa. hadoo kale sound assistant oo kale ayaan u baahnaa inaan soo degsado. waa taabanayaa kadib wuxuu geenayaa websiteka app mirror. marka wuxuu ku siinayaa firshinka u dambeeyay. horta mid waa inaa hubisaa midaasoo ah applicationka firshinada uu ku shaqeynayo. hadoo kale meeshan waxaa ku qoran Android 9 iyo waxaa ku qoran Android 10. marka haddii labadan firshin ay ku shaqeynayaan teleefonkaaga waa soo degsan kartaa oo waxaad taabanaysaa download app.
APK ayaad taabanaysaa, ama waxaad sameynaysaa firshinada dambe gadaal ayaad u laabanaysaa oo firshinada hore ayaad raadinaysaa oo taleefankaaga ay ku shaqeynayaan. Marka sidaas ayaad usoo degsanaysaa applicationada. Muuqaalkiina intaas ayuu ku egyahay. Inta muuqaalka xiga aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.